shacabka Soomaaliyeed iyo midowga musharaxiinta ee waxyeeladu ay ka soo gaartay waxaana la isla gartay in loo saaro guddi madax bannaan oo baaritaan ku sameeya sidii ay ku dhaceen. labo sida uu qabo qodobka 20aad ee dastuurka ku-meel gaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qof kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu abaabulo kana qayb galo bannaanbax si xasilooni ah cabasho loogu muujinayo. sidaa darteed xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay damaanad qaadaysaa in ay ilaalinayso xuquuqdaas dastuuriga ah. 3 dowladda federaalka iyo midowga murashaxiintu waxa ay ka wada shaqaynayaan sidii loo qaban lahaa bannaanbax si nabadgelyo ah ku dhaca iyadoo dowladdu ay ilaalinayso amniga iyo badqabka bulshada Soomaaliyeed. 4 dowladda federaalka Soomaaliya iyo midowga murashaxiintu waxay isla garteen in dib loogu dhigo mudaharaadkii qorshaysnaa maalinta Jimcaha ee ku beegan tahay 26 Febraayo 2021 oo bari. barnaamijka dib loo dhigay waxa uu dhici doonaa muddo 10 cisho gudahood waxaana loo xilsaaray guddi wada jira. waxaa la isku afgartay in arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka wada hadalladoodu ay sii socdaan ama la sii wado si loo gaaro qabashada doorasho xor iyo xalaal ah. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدحوينياشي هراء الدلكة مدحوينياشا قلمدوك هيرشابيل مدحوينيه هراء قلمدوك مشرحين تا اللي بعندا وزير ردا سنة الردا يدمان كسوقي بقلياشا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة meesha aan taaganahay qofkii istaagayaa garan kara cawada farxadda ii leedahay in dad walaalahay ah aan maanta halkan ku soo gabagabaysano heshiis is-afgarad ah oo aan soo gudbinay statementigiisa. waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo runtii igu garab istaagay ina soo jeediyay hawshan baaxad leh oo culus inaan guto sida ugu wanaagsan. waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadceliyo farsamayaqaanadii sancadeydii hawshan soo fududeeyay oo qayb weyn ka soo qaatay labadii isbuuc ee ugu dambeysay isbuucii barkii ugu dambeysay ay isugu jiraan xildhibaano iyo senatoro. shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waa idin maqanahay nagu seexda waa noo muhiim amniga dalka waa noo muhiim xorriyatul qowlka waa noo muhiim inaan dhammaanteen ku noolaano nolol wanaagsan oo mustaqbal fiican leh. mudaharaad nabadeed waa waajib dastuuri ah oo qof kasta oo Soomaali ah uu xaq u leeyahay. waxaa iyadana waajib ah in cid markaa mas'uulka ka ah lagala shaqeeyo sidii ay ugu dhici lahayd si amni ah oo wanaagsan dibna uu naga soo wada gaarin. insha Allah sida statementiga ama warmurtiyeedka ku qorneed waa isku afgaranay wixii dhammaan halkaas ku qornaa. insha Allah Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryayaa inuu si wanaagsan inoogu dhameeyo inta dhimanna insha Allah aan dhaxdu xirno. shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in ay nagu garab istaagaan sidii aan doorashadan u dhameyn lahayn nooguna dhamaan lahayd si xor iyo xalaal ah. waan ogahay habeenadan waad murugaysnaydeen insha Allah Ilaahayna uu naga saaray caawa murugadii. waxaan rajaynaynaa inaan farxad ku sii dhameysano inta nooga hartay. doorasho waa waajib wayna naga go'an tahay dhammaanteen. insha Allah way noo qabsoomaysaa inta dhimanna waxaan rajaynayaa walaalahay musharaxiinta walaalahay dowlad goboleedyada inta naga maqan dhammaan inaan gacmaha isqabsanno oo aan fududayno caqabadaha jirina aan ka gudubno si ay noogu qabsoonto doorashadaas anigana aad gacan igu siisaan. caawa waxaan rabaa halkan inaan uga faa'iideysto
dalka xaalad ayuu ku jiraa oo ah xaalad caafimaad ee coronaviruska yaantan waan wada mashquulsanayn oo siyaasad ayaan ku mashquulsanayn laakiin dadkii dhinac ayay ka baaba'ayeen waxaan rabaa inaan caawa dib ugu soo jeesanno oo aan gacmaha isqabsanno oo aan u gargaarno qof kasta oo naga xanuunsanayo cudurkaanna aan raacno waajibaadkii naloo saaray oo ah inaan kala fogaanno afka xiranno gacmaha iska dhaqno lana taxadiro marka aan u soo wada jeesanno waxaa kaloo jirto oo aan rabaa inaan idiin sheego xilliye adag ayaan ku jirnaa oo hadda koronaha ugu horeeyo waxaa ku xiga xilligii jiilaalka oo ay bilaaban doonto biyo la'aanti waad garan kartaan dad Soomaaliyeed oo masaakiina oo tuulooyin iyo degmooyin ku nool oo biyo la'aan ku dhici doono maadaama ay jiilaalkii hadda uu marayo qaybtiisii dhexe waxaan rabaa inaan u soo wada jeesanno oo gacmaha isqabsanno sidii aan uga gudbi lahayn xilligaa jiilaalka ah caqabadda saddexaad oo ku xigta iyadan waxaa waaye xilligii daadadka ayaa ku xigo oo iyadana u baahan inaan hadda iska kaashanno dhaqaalo u sii dhiganno fatahadahaas aan ka hortagno hadduu ilaahay subxaanahu watacaala noo idmo waa mahadsantihiin idinkana waxaa idin leeyahay habeen wixii maanta meesha ka dhacay iyo wanaaggii iyo wada hadalkii horay ayaa madaxdii iga horreysana uga faallootay uga warrantay howl aad iyo aad u wanaagsan ayaa maanta meeshaan ka qabsoontay howl bilow ah ayay ahayd laakiin howl bilow uma ekayn runtii howl uu meel fiican soo gaartay ayay ekayd meel fiican ayayna soo gaartay inaha la sheegayna waa dhiman yihiinoo waa la sii wadi doonaa waa la sii dhammaystiri doonaa haddii alla yidhaahdo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane maxamed xuseen rooble oo runtii hogaamin iyo dulqaad iyo ka muujiyey maanta iyo dabacsanaan badan wada hadalladeennii iyadoo oo duruufo badan ay dalkaani meel walba ka xeeran yihiin haddana in la wada hadlo oo la wada fariisto oo laisu soo dhowaado way fiican tahay sida communiquega ka muuqatayne waxyaabo badanna waa laysku afgartay waxyaabo badanna waa laga sii wada hadli doonaa hadafka ugu dambeeya oo la wada hiigsanayana wuxuu yahay dalkaani doorasho inay ka dhacdo waqtiga ugu dhow ee suurtagalka ay ka dhacdo mid maxaanku idhahdaa raalli laga wada yahay oo lagu wada qanacsan yahay inay ahaato mid u horseeda dalkan deganaanshiyo siyaasadeed iyo nabad iyo karaamo inay noqoto haddii alle iyo sharciyad xoog leh oo ay ka dambayso ka dhalato dowlad leh sharciyad xoog leh oo maxaanku idhahdaa dadka Soomaaliyeedna ay ku kalsoon yihiin caalamkuna uu ku kalsoon yahay haddii alla yiraa waxaan aad iyo aad u aaminsanahay in laga miro dhali karo arrintaas la keeni karo haddii qof walba uu iska xil saaro uu ka adkaado hadalladiisa iyo caatifadaha iyo waxyaabaha waxaa laga hadlayo mustaqbalka ummad dhan waaye laguma go'aamin karo caatifad iyo qof maalin xanaaqe iyo qof rabitaankiis iyo qofaf rabitaankood iyo muxuu ahay laguma go'aamin karo waxaan rajaynaynaa biseylkaas siyaasadeed ee maanta halkan ka dhacay inuu sii muuqdo sidoo kale waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa mabda'iyan in laysla qaatay qof kasta oo Soomaali ah oo wax tirsanaya wax qaba ra'yi qaba in la dhageysto lala fariisto laga qanciyo waxa uu qabo ama waxa oo la rabo in la dhaqangeliyo lagu qanciyo ee markaas aanu ku qanacsanayn laakiin ma jirto haddii aan la yiraahdo maxaan ku raadaay isjuubid ama isqasbid ama xoog iyo maxaan ku raacay colaad wax ku raadin intaba ma jirto dalkaani waa ka yimid waayihii colaad iyo maxaan ku raadaay xanafta waayihii walaalnimada isqadarinta istixgelinta isu nuglaanshaha ayaa lagu jiraa waan ku soo caanamaalnay horay haddana waa ku sii caanamaali doonaa haddii aan la yiraahdo waxaa mar walba noo qoran dastuurka aan leenahay iyo shuruucda dalka ay leedahay wixii markaa aan aad u caddayn ama ka maqan dastuurkana wada hadal iyo wada xaajood iyo isqancin iyo wada ogol in lagu jiheeyo ayaa iyadana mabda muxuu ahay rasmi ah laislana wada ogol yahay haddii aan la yiraahdo ayadoo la ilaalinayo dastuurka iyo shuruucda dalka ka jirta ayadoo la ilaalinayo dhammaan wixii xuquuq ah oo ay shuruucdaas iyo dastuurkaba bixinayaan haddana duruufaha jiraahay mar walba tixgelintooda ayay leeyihiin waana la tixgelin doonaa haddii aan la yiraahdo
mar kale waxaan u hambalyaynayaa dhammaan madaxdii mas-uuliyiintii maanta halkan muddada dheer saacadaha dheer wada fadhiyey oo wada hadal ku jiray waxaan dadka Soomaaliyeed u sheegayaa farxad iyo wanaag caawa ku seexdaano haddii aan yiraahdo inta dhimanna waxaan rajaynaynaa inay sidoo kale ku soo dhameystiranto oo maalmo badan oo qurux badan ay noo soo socdaan haddii aan yiraahdo ilaahay idinkiis mar kale hambalyaan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaatu wassalaamu calaa rasuulillahi wabacd ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble madaxweynihii hore madaxweynayaasha galmudug madaxweynihii hore galmudug xildhibaanada iyo wasiirada dhammaan bahda saxaafadda iyo inta na dhegaysanaysa waxaan idinku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu murashaxiinta ma iloobin intaas markaan ka gudbo runtii sida mas-uuliyiintii iga horreeyay ay sheegeen halkan waxaa ka dhacay wada hadal maanta laakiin sida laydin sheegay hore u soo socday ay ka qayb qaateen dad kala duwan dad muuqday dad aan muuqan marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadkaas ka soo shaqeeyey wada hadalkan waqtiga soo socday maxay ahaato kuna soo gabagaboobay bayaanka la akhriyey oo aad wada maqlayseen intaas markaan ka gudbo aniga waxaan isleeyahay waa tilaab fiican hore loo qaaday bani aadamku inuu kala ra'yi duwanaado waa shay dabiici ah laakiin muhiim waxaa ah inuu wada hadli karo xalna ka gaari karo waxa uu isku hayo waxaan isku hayna waa dowladnimadana waxaa asaas u ah wada hadal iyo sharci labadaas asaas u ah waxaa laga yaabaa mararka qaar hal qodob in qofba si u fasirto marka haddii aan laga wada hadlin lagama gaari karo xal nidaamka dimuqraadiga ee maanta annaga aan dul taagannahay ama aan ku shaqaynayno waa nidaam curdun ah marka in dadka Soomaaliyeed ay dareemaan dawlad ay leeyihiin oo u jilcan oo sharciga ilaalinaysa waa arrin aad iyo aad muhiim u ah marka annaga dhinaceena haddaan nahay murashaxiintii ama midowga murashaxiinta waxaan ka hadlayna kaliya waxay ahaayeen dadka murashaxiinta ah ha helaano si waafaqsan dastuurka in ay heli karaan maxaan ku yiraahdaa waxa dastuurku u saamaxayo inay political space heli karaan haddii ay wax ka qabaan dawladda waxa ay sameynayso inay banaanbax nabadeed samayn karaan iyo wax alla wixii xiriir la leh arrimaha doorashooyinka oo ay ka mid ahaayeen heshiiskii dhuusamareeb waxyaabihii ka soo laabtay sidaas oo kale waxyaabaha laga hadlaya sidaad maqlayseen waxaa ka mid ahay 19 February wixii dhacay dhammaan waxyaabahaas oo dhan waa la isla soo dhaweeyay fadilaahi alxamdulilah ku mahadsan waxaan rajaynaynaa waxa waaye inay wada hadallada sii socdaan laga midho dhaliyo dadka Soomaaliyeedna ay arkaan doorasho xura oo xalaal ah oo lagu wada qanacsan yahay natiijadeeda la aqbalsan yahay hore u sii socon karta sharafna u ahaa karta dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba aan aaminsanahay ilaalinta sharcigu waa wax muhiim ah waxa dastuurka loo qoray oo dawladnimada la isugu yimid oo halkaas loo wada fadhiyana waa taas ayaana rabnaa anaga dhinaceena inaan ka ilaalino meesha nooga aadan uga aadna ilaahay idankiisa طبعا mararka qaar waxa laga yaabaa qofba inuu meel ka istaago sida aan sheegnay laakiin waxa lagu xalli karo waxa kamid ah in la isu yimaado oo la wada hadlo oo laga heshiiyo waxa maanta halkan ka dhacayna waa heshiiskaas kaasana rabnaa inuu hore u sii socdo ilaalinta dastuurka iyo xuquuqda iyo xorriyaadka waa waxyaabaha dawladnimadu ku istaagto marka qofku inuu mar walba dul istaago waa laga maarmaan sababtuna waxa waaye waxa fawdada iyo kala dambeyn la'aanta iyo in dhibaato dhacda keenayo waxaan aaminsanahay inay yihiin sharciga oo la hareer maro marka dhammaanteen aan wada ilaalino sharciga aan wada ilaalino heshiisyada dadka Soomaaliyeedna sidaas ay nabad iyo horumar u gaari karaan waa run dalka waxa ka jira corona waa run waxa ka jira amni darro laakiin ayaguna excuse uma naqo karaan xorriyaadka in la qaado excuse uma naqo karaan in dadka la caburiyo marka waxaan rabnaa labada dhinac in laga istaago qof walba meesha ku habboon oo ka istaago qofka maanta jooga berri ma joogo qofka berri jooga berri dama ma joogo dawladnimadu sidaan ognahay waa wareegto
marka annaga dhan waxay nagu anfacaysaa sharciga inaan ilaalino maxaa yeelay qofka maanta jooga xurmada u baahan yahay qofka aan jooginna waxa u baahan yahay xuquuqdiisa inuu helo marka aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh ilaahay baan uga mahad celinaynaa hawshii la isugu yimid oo waqtiga la rogrogay muddada halkan maanta loo fadhiyey caaway noogu dhammeeyey si guul ah iyo isafgarad taas mahadda maanteeda ilaahay baa iska leh intaa kadib waxaan rabaa halkaan inaan uga tacsiyeyno dadkii Soomaaliyeed ee waxyeeladu ka soo gaartay dhacdadii 19 February mansab kasta iyo magac kasta ay leeyihiin intii ku dhimatay Allah u naxariisto intii ku dhaawacantana caafimaad Allah siiyo runtii waxaan rabaa in halkaan uga mahad celiyo taasi kadib intii ka qayb qaadatay soo abaabushay ka soo shaqaysay gacan ka geysatay inaad waa ku mahadsantihiin annagoo runtii qayb weyn ka ahayn safarkeennagana ay qayb ka ahayd inaan howlahan xal u helno ka socday maalmahan muddadan dambe magaalada Muqdisho ilaahay subxaanahu wa ta'aalana waa annaga iyo intii ka qayb gashay waa nagu guuleeyay dhammaan mas'uuliyiintii ka qayb qaadatay oo tanasushay isaga soo dhawaatay waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin intaas kadib dhacdadaas waxaa laga gaaray safgarad sidii hore lagu akhriyey statementiga iyo sidoo kale mudaharaadkii ay ku baaqeen ama ay cilaamiyeen midowga murashaxiinta oo isagana meel la isla dhigay waqtiga uu dhacayo xilli ku habboon iyo qaab ku habboon inay ka soo wada shaqeeyaan xukuumadda iyo dhinaca midowga murashaxiinta waxaa xusid mudan in aad iyo aad la isu soo dhawaaday wax badan la rogrogay la gorfeeyey jawi deganna lagu wada hadlay hadda kadibna aan ku kalsoonnahay inay sidaa ku socon doonto hawsha iyadoo sidii la xusayba qodobadii laga wada hadlay ay ka mid ahaayeen arrimaha doorashooyinka iyo sidii dalka doorasho xor iyo xalaal uga dhici lahayd oo wada geli lahaa ayadana runtii jawigaasi wuxuu ahaa jawi didiilo leh ummadda Soomaaliyeedna u leh runtii aragti cusub iyo maalmahan dambe arrimay socday rajo ka daba marinaysa waxaan ugu baaqaynaa cid walba ama walaal kasta oo ka maqan arrimahan in waddanka doorashooyinka ka dhacaan laga baxo waqtiga isbeddelku si u dhaco sidii loogu talagalay inay ka soo qayb galaan waxaan cid walba ugu baaqaynaa in dhinaca gacanta wanaagga gacan laga geysto dhinaca isu-imaadka iyo heshiiska gacan laga geysto aanay cidna ka qayb qaadan wax sii fogeynaya ama wax sii kala durjinaya waxaa runtii xusid mudan qof kasta oo mas-uul ah ama dadkeena mas-uuliyiinta ah in laka rabo inaan mar walba ku dhaqaaqno ama aan ka shaqeyno isu soo dhawaanshaha iyo in doorasho dalka iga dhacdo sidii loogu talagalay inaan ka shaqeyno aanan marna ama deegaan ama dadka Soomaaliyeed mas-uuliyiintu ayna ku matalin wax keeni kara kala fogaansho taa cid walba waxaan leenahay arrintaas ha laga digtoonaado hana la isu yimaado doorashadii iyo arrimaheediina hore aan annagoo heshiis ah oo walaal ah oo doorashadu tahay xalaal aan hala wada galo arrintaasna waxaan daraynaa baaqaas waxaan leenahay jawigan iyo wadahadalkan caawa halkan ka dhacay runtii wuxuu yahay mid farxad leh mid bishaaro leh mid rajo fiican gelinaya dadka Soomaaliyeed inaan hore u sii wadno hore loo sii wado ayaanan rajo weyn ka qabnaa kuna kalsoonnahay waxaana leenahay warkii iyo xaaladii aan la soconayn waqtiga doorashada meesha ha laga daayo yaan meesha la soo gelinin cid walbana sidaan ugu baaqaynaa waan mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ayaa runtii uga mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug iyo gudoomiyaha gobolka oo si dhiiranaan leh runtii dood miro dhalan la furay maanta ka bixiyay cudurdaar wixii dhacay 19 Febraayo kana garaabay islaana meel dhignay arrimo badan oo taagtaag ah ama mugdiya oo dhexdeena ku jiray haddana aan ku heshiin in horay loo dhaqaaqo oo loo socdo
runtii 19 febraayo sax waaye dhacdo xanuun badan ay ahayd oo shacabka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadka gobolka Banaadir ku xanuun badan waxaase ka dhashay waxyaalo ka ratimay oo badanaa jiro oo kulamada dambe uga wada hadli doono wax walba dhacdo kastaana waxay soo saartaa hunbay banaanka soo dhigtaa marka muhiimadda ay leedahay arrinta nabadgelyada doorashooyinka ama electoral security wax la yiraahdo ayay banaanka soo dhigtay iyo xorriyadda siyaasadeed intaba midna hadda waa bilownay oo waatan mudaharaadkii iyo qaabka u dhici lahaa aan ka wada shaqaynayno wasiirka amniga saaxiibka Xundubey waxaan rajaynayaa inuu nagala shaqeyn doono arrintaas maadaama asaga hadda guddiga loo xilsaaray uu ka mid yahay waxaan aad iyo aad runtii aan dad badan oo u dhegtaagayay shirkan intii aanan soo gelin saakay midowga musharaxiinta waxay shir lahaayeen qolo la yiraahdo C6 plus oo beesha caalamka ka mid ah shirkan oo bayna weydiinayeen kulankan asaga ah Soomaalida daafada dunida joogtana asaga oo bayna weydiinaysay marka annagana waxaan ku mitidnay runtii oo dhinaca kale aan uga mahad celinaynaa oo dowlad goboleedyada iyo xukuumadda ra'iisul wasaaraha uu hogaaminayo in aan isku raacnay markii aan soo fadhiisanaba inaan ka miro dhalino shirka runtii waana ka miro dhalinay qof kastana kaalintii ay ka qaadatay ama doorkeedii waa uga mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa wixii maanta ka dambeeya in hore aan u soconno ra'iisul wasaarahana maadaama annaga midowga musharaxiinta haddaan nahay xukuumadda aan u ogolnahay aan isku raacsannahay mandatekeeda xilgaarsiinta ayada inay leedahay inaanu horkaco howlaha inta dhiman aan isla wada dhamaystirno si dalkan ay uga dhacdo doorasho nabada la isku raacsan yahay laga raali yahay xilka iyo meertada siyaasadda Soomaaliyana sideedii aan ku soo celino ay ahaa jirtay oo ahayd inay 4 sano si nabad ay ku dhacdo markale waxaan u mahad celinayaa intii dadaalka qayb qaadatay waana